asalaamu calaykum soo dhawaada kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa beetrootka ama maxaa la dhahaa shamandarka soomaalida si u taqaan waxaa la dhahaa baytaraaf marka kaasaan ka hadli doonaa muxuu ilmaha waxtar u leeyahay ayaan ka hadli doonaa insha allah haddii markii kugu horeysaan soo booqata ay tahay subscribe noo saar gambaleelkana furo si fiidiyoyada cusub kuu soo gaaraan haddaa hore nula joogtani like noo saaro liketa waxay naga caawinayna dad badan sii gaaraan muuqaalka maxaa la dhahaa asxaabtaadana usii sheergareeya marka soo dhawaada beetrootka ama baytaraafka horta waxaa wanaagsan cunuga markaa siinay sidoo kale in maxaa la dhahaa waxyaalo kale ugu dartid lian asaga kaligiis dhadhan gooniya ma lahan carafna ma lahan laakiin waxtar badan wuxuu leeyahay aadan mareysan karin laakiin caadi ahaan asaga markaa aragtid oo kale justi maxaa la dhahaa cabitaankan maxaa la dhahaa soomaalida ay qastaan dhalada ku jiro fiintada waxba ma dhaamo uran gooniyana ma lahan dhadhan oo macaani dhanaani wax lagu soo raacayana malahan laakiin faa'iidooyin ayuu leeyahay marka waxaa wanaagsan cunuga asaga kaligiis markuu yahay kale uusan jeclaysan laga yaabaa maxaa la dhahaa maadaama uusan carafi dhadhan lahayn laakiin wax kale oo cunug dhadhan u yeelay ugu darsid ayaa wanaagsan marka soo dhawaada beetrootka caadi ahaan ilmaha waxaa loo bilaabi karaa cunuga markuu 6 bil jirsado ayaa loo bilaabi karaa markaas cabitaan ahaan loo siin karaa liana beetrootka inta badan wuxuu faa'iidadiisa leeyahay marka cabitaan ahaan ay tahay oo just cunitaankiisa caadiga ah ma qurux badno marka inuu qofka cabitaan ahaan intuu u shiido cunuga 6 bil soo gaaro kale uu siiyo laakiin uusan rasin asagoo ah uusan siinin oo biyo uga daro kale wax yar maxaa la dhahaa biyo ka dhigo siiyo biyo saidana ma ahan laakiin maxaa la dhahaa mana ahan maxaa la dhahaa rasin gooni ah marka fitamiinooyin ku jiro waxaa ku jirta macaadin ku jiro fitamiinka ku jiro fitamiinooyinka laga helo waxaa kamid ah vitamin A oo kale vitamin E ga vitamin K ga iyo vitamin B complex-ka ayaa laga helaa marka vitamin B complex wuxuu ilmaha ka saacidaa kale in cunuga tamar uu helo kale uu ku ciyaari karo haduu waxbarasho ku jiro kale maxaa la ka caawinayso energy fiican oo helo waxa kale vitamin B gan complex ilmaha uu ka caawiyaa inuu ilmaha appetite-ka u furo oo waa faatix lishahiya waa inuu cunuga appetite-ka u furo ayay ka caawisaa vitamin K ga kale waxay ka caafisaa ilmaha dhiig bax in waxaas inuu dhicin oo nasiif inuu ilmaha ku imanaya ka caawisaa vitamin K ga macaadinta laga helo waxaa kamid ah oo kale birta ama waxay ka caawisaa anemiyada caadi ahaan beetrootkana dhaqaatiirtu waxay u qoraan qofka dhiig la'aanta maxaa la dhahaa meesha ugu darnay taagan oo kale ay dhaqaatiirta dhahaan beetrootka ha qaato liana bir waxaa ku jirto maxaa la dhahaa fiican ayaa ku jirto macaadinta ku jirta bira kamid ah waxaa kamid ah maxaa la dhahaa nuxaas iyo magnesium intaas ayaa laga helaa caadi ahaan asaga waxaa lagu daaweeyaa beetrootka anemiyada lagu daaweeyaa oo waxaa la dhahaa waa jiiska koowaad ee anemiyada lagu daaweeyo ilmaha ilkahooda iyo lafahoodana wuu adkeeyaa oo cunug ilkihiisa lafihiisa wuxuu ka dhigaa kuwo xoogan araga wuu u fiican yahay oo kale oo maxaa la dhahaa qofka haddii aragiisa daciif yahay oo kale araga wuu u fiican yahay wuxuu kaloo sameeyaa maxaa la dhahaa beetrootka jirka bani'aadamka wuxuu ka saaraa sunta jirku wuxuu ka saaraa sunta maxaa la dhahaa inuu faa'iido leh waxa in jirka sunta uu ka saaro midda kale ugu muhiimsan hooyooyinka ka caawinayna waxaa waaye hurdada ilmaha ayuu nidaamiyaa hooyooyinka badan waxay ku dhibayeen ilmaha habeenka soo kacitaanka tirada badan haddii cunugaada soo kacitaankiisa badan yahay oo kale in maxaa la dhahaa sidoo kale beetrootka lian hurdada ayuu u nidaamiyaa ilmaha caadi ahaan hooyooyin waxaa jira ilmaha habeenka saad usoo kacaan naasiisa caanasi oo kale habeenka soo kacitaankooda badan yahay waxaa haboon cunugaada galabkii 10 saac ilaa maqribka laga gaaraa inaa caana iyo maxaa la dhahaa haddii cunugaada uu yar yahay oo kale 6 bil ka yar yahay inaa caana sii sidoo kale ayaa wanaagsan igaraan aqda wax yar mashquul yaraan gal waxaa wanaagsan cunuga hadii 6 bil uu ka yar yahay kale si habeenkii kacitaankiisa uu yiraahdo kale in 10 saac wixii ka dambeeya galabkii caana fiican aasiisid cunuga mar walba caana dalbada aasiisid haduusan dalban xataa isku dayay inaad sii kartid inuu isaga diida maahan cunuga sababtoo ah galabkii 10 saac wixii ka dambeeya cunuga wuxuu cuno jirkiisa wuxuu u kaydiyaa inuu habeenkii oo isticmaalo marka haddii cunugaada maalinta badan wax siinayso kala galabkii 10 saac wixii aasiisid way ka muhiimsan yihiin wixii saaka aad siinayso sababtoo ah wixii saaka aad siinayso cunuga jirkiisa way ka bixin laakiin 10 saac wixii ka dambeeya cunuga wuxuu qaato ilaa ay maqribada laga gaaro cunuga wuxuu qaato jirkiisa isla markaa ma isticmaalo wuxuu u kaydiyaa in habeenkii marka maxaa la gaaro inuu jirkiisa u isticmaalo ayuu jirka u kaydiyaa
marka waxaa haboon in ilmaha maxaa lahaa hooyooyinka ilmaha ku kackacitaanka badan yihiin oo kale in galabka 10 saac marka la gaaro oo kale ee maxaa lahaa cunug wixii sii karaan ay siiyaan si jirkiisa uu sii kaydiyo caanahaas iyo waxaas la siiyo caadi ahaan beetrootka ilmaha hurdadooda ayuu nidaamiyaa ayuu qayb ka qaataa sidoo kale beerku nadiifiya oo maxaa lahaa beerku wuxuu ka dhigaa munashad si beerku caadi ahaan jirka bini'aadamka beerku wuxuu meesha ugu muhiimsan li'aana sunta jirka soo gasho dhan beerka ayaa saara marka hadii beerka uu firfircooni geliyo kale beerka shaqadiisa oo ahayd in sunta saaro si fiican ayuu u gudanaa sidoo kale beetrootka waxaa ku jiro wax la yiraahdo alyaaf ghidaa'iyan marka wuxuu ilmaha ka saacidaa in calooshooda ay socoto cunuga calooshiisa adagto oo kale in calooshiisa socoto ayuu qayb ka qaataa marka waxaa haboon ilmaha hadii calooshooda adagto oo kale in maxaa lahaa in la siiyo si calooshooda u jilacdo hooyadan caadi ahaan waxaa haboon cunugeeda marka cuntada siinayso in cuntada isku dheelitirto ee maahan caloosha u buuxisay cunugii karbohaydraytka cunuga maadna hadaa siinaysa sax caloosha u buuxisay difaaca jirkiisa cunuga daciif uu noqon haduu karbohaydrayt haysto waxaa laga yaabaa in cunugeeda saxarada ku lajiso karbohaydraytka inta badan caloosha ay adkeen cunuga saxarada ku lajiso ayaa la arkaa marka hooyada waxaa wanaagsan cunuga maadaama cunto aad siinaysid maxaa la qarash aad galaysid in qarashka wax la yaqaan aad u gashid cuntada cunuga maxaa lahaa isku dheelitiran tahay بروتينات cunuga u baahnaa nashawiyaadkii karbohaydraytka u baahnaa fitamiinada u baahnaa macaadinta u baahnaa qudaar iyo faakihaynta u baahnaa cunuga maalintii ma siisa cuntadan aan siisa caloosha ma socodsiine hadii soo socodsiinina caloosha maxaa ugu dari karaa caloosha socodsiyahay lian cunuga hadii caloosha socon abatiidkiisa wuu xirmaa cunug dhiig la'aanta maxaa la cuntooyinka ilaali kara inaa si sidoo kale sababtoo ah cunuga dhiig la'aan ku dhacdo ayda asagana abatiidka uu ka xirmaa oo kale cunuga lian maxaa la cuntooyinka abatiidka furan maxaa waaye cuntooyinka vitamin B complexka ku badan oo kale cunug u raadisid lian cunuga tamarna way siisaa abatiidkana way u furtaa marka cunuga markaa siinaysid cunto kale waxaa ina ka fikirtaa dhinacyo badan inaa fiiriso waa cunuga korinshihiisii hurdadiisa maxaa la cuntadan hurdadiisa intee qayb la eega ka qaadane kawan hadii cunuga galabka 10 saac caashaha cadeys dhab ku siisid hurdadiisa habeenka ma saxmayso lian murabihaadka kamid tahay oo kale ayada marka maxaa lahaa in cunuga maxaa la waxyaalaha macaan siisid difaaca jirkiisa ayaa hoos u dhigtay hooyada markay qarash galeysay cunugeeda in cunto siisa ugu tala gasho waa in dhinacyo badan ka fiirisaa borotiinka ka fiirisaa karbohaydraytka ka fiirisaa qudaarta faakihada ka fiirisaa cuntada caloosha ma socodsiinaysa waa inay ka fiirisaa maxaa lahaa cuntadan cunuga difaaca jirkiisa ma u fiicanta waa inay ka fiirisaa cuntadan aneemiyada maxaa lahaa cunugaada ma ku hortagi kartaa waa inay ka fiirisaa waa in dhinacyo badan ee maxaa lahaa ee hooyada ka fiirisaa cuntada ay siinayso cunuga qarash markay galayso aysan wixii aragtay aysan u soo qaadan oo kale marka muuqaalka intaan ku soo gabagabeynayna hadii marka kugu horeyaan soo booqatay ay tahay subscribe noo saar hadii gambalelkan furo hadaa hor noola joogtaan like dhe asxaabtadan u sii share gareyso dhawaad waa mahadsantihiin